haddii lagu soo celiyo farmaajo waxaan inii sheegaya dalkan si walba buu geli doonaa wax shaki igama jiro dadka Soomaaliyeed uu isku diray wax uu farmaajo u soo siyaadiyana ma jirto dad waxaa jira farmaajo leh oo hadda kulli iska meelahan ka maqmanahay meediyada ku jira iska dhalinyaro iska caruur oo waxay sheegayaan baad aqoon naga farmaajo wixii loo dhiibay wuu burburin wuxuu Soomaaliya u sameeyay nin reerkii asaga uu ka dhashay wanaajin waayay oo isku keeni waayay Soomaaliyeed maanagu soo keenaya Soomaaliyeed soo keenaya magada iyo galkayo soo keenaya ma yasashu qofka Soomaaliya hogaaminaya calaamad buu leeyahay calaamadahaasi aniga laba nin bay iga muuqdaan labadan nin waa ninka la yiraahdo ina Cabdishakuur ninka la yiraahdo ninna waa ninka la yiraahdo Xasan Sheekh oo awal soo tijaabiyay anu waxaan isleeyahay marka qof aan wali tijaabin maanta ninkaas ku ogaano ina Cabdishakuur la yiraahdo aan ku ogaano sabab farmaajo aan ku soo noqday Jabuuti buu yiri cadowgayaga way qofka Soomaaliya iibsanaya Jabuuti ay cadowgayaga tahay ma walaalka laan leenahay waa idin salaamaya idaacadatan iyo adinka howlwadeennada iyo idaacadatan dadka leh intaba aad baan idin salaamaya dabcan su'aal baad weydiis Abdullaahi farmaajo Soomaa farmaajo waa tijaabinay Soomaaliyana way taqaanaa dadka Soomaalida ay wuxuu yahay farmaajo lamood noqon sawayday ayaa lagu soo arooriyay dib u doorashadiisa waxay ila muuqataa wali dadka Soomaalidu ma wala way miyir qabaan inay u dib u dooranayana u malayn maayo tilaabo uu qaaday oo wanaagsan oo dalka iyo dadka iyo diinta u wanaagsan ma jirto anigu wax aan ku cabira ma aqaan dadka Soomaalida oo civil war-ka ka baxay oo tartiib stability-gooda iyo dawladnimadooda u soo ceshanaya ayaa farmaajo la doortay Xasan Sheekh iyo ninka la yiraahdo Shariif oo gacmaha ayaan xasuustaa maantana meesha Soomaaliya ay ku dambayso qof walba waa og yahay xildhibaanada la soo doortay oo 329 ka ah inta badan way og yihiin qofka uu yahay farmaajo u malayn maayo Soomaaliya farmaajo ku soo celinaya inuu marka isra maxaa ku dhiirigeliyaa isla waaliday ka mid tahay hatta ma sheexay ceeb bay ku tahay inuu ummadda Soomaaliyeed uu hor yimaado oo yiraahdo waxaan rabaa mar labaad in la doorto ceeb bay ku tahay dadka Soomaaliyeed bay ceeb ku tahay waxay ceeb ku tahay kuwa uu weydiisanayo oo xildhibaanada Soomaaliyeed oo yaqaanay ceeb ku tahay inuu weydiisto sababtu waxa weeye wax lagu doorto nooma sheegin haddana ma sheegi karo wax lagu doorto wax uu Soomaaliya u dhisay lama arko eeg waxaad fiirisaa inta tilaabo oo uu qaaday inta tilaabo oo uu qaaday oo ay ka mid tahay in uu burburinayay maamul goboleedyadii dalka ka dhisnaa oo uu ka soo bilaabay meesha la yiraahdo Somali West nimankan Baydhabo hadda ay xarunta u tahay oo Baraawe ay ahaydeen xarun noqoto wala socotaayo haddii ilaahay ku imayo wuxuu ku sameeyay galmudug wala socotaa wuxuu ku sameeyay meesha la yiraahdo Hirshabeel intaasba dadka uu burburinayo wuxuu liicin waayo oo ridi waayay labada gobol ee haddii ilaahay ku imayo midna uu yahay meesha la yiraahdo Puntland iyo Jubbaland buu liicin waayay raggaasi waxaan aaminsanahay rag Soomaaliyeed oo sharaf leh inay yihiin oo iska celiyay oo yiri waraga joog islaan hadda tahay naga joog inuu kullu burburiyo dalka marka ma aaminsana xataa inuu aaminsan yahay federalismka Soomaaliya urdanka ka inuu aaminsan yahay aniga ma aaminsani gurdu kamid yahay dadka la filayo dad jiidiya oo saxaynta maanta qodobada jiidiya kamid yahay laga yaabaa inuu la yimaado wax uu ka duwan qodob baarlamaaniga u malayn maayo aniga wax uu la imaan karo farmaajo oo dadka u sheegi karo anigu inay jirto u malayn maayo muxuu ka qabtay haddii ilaahay ku idmaayo inta aan sheegi doono muxuu ka qabtay
horta dalka kan muxuu ka qabtay sharciga waddanka lagu maamulayo constitutionkii socday muxuu ka qabtay miyuu dhammaystira waa maya muxuu ka qabtay dib u heshiisiintii qaranka Soomaaliyeed iyo Somaliland dadkan walaalaha ah oo walaalaha naay oo halkaas ku go'doonsan muxuu ka qabtay dhibaatada u geystay in beechi raashinkii iyo lacagtii uu ka joojiyay muxuu ka qabtay inuu yacni taqaanaa nimanka kan dalka dagaalka la dagaalahaya oo dhalinyarada muxuu ka qabtay ragga ama waa lala diray ama waa laga heshiiyay muxuu ka qabtay intii been ahayd oo sheegay 10 beenood oo uu sheegay oo uu yiri dalka waxa uga qabanaya mid uu ka hirgeliyay lama arko dadka Soomaaliyeed uu isku diray wax uu farmaajo u soo siyaadiyay ma jirto dad waxaa jira farmaajo leh oo hadda kulli iska meelaha ka maqmanahay meediyada ku jira iska dhalinyaro iska caruur oo waxay sheegayaan baad aqoon naga mustaqbalka dalkan ka hadlayna farmaajo wixii loo dhiibay wuu burburiyay wuxuu caburiyay meediyadii buu caburiyay iyo warbaahintii buu caburiyay wuxuu ku sameeyay kuwii ka horeeyay oo gacmaha hayay soo kii diyaaradda la ridi lahaa ma soo kii nimanka la Jubbaland cuna qabateeyay ma haddeer muxuu ku sameeyay meesha la yiraahdo meeshii asaga asalka u ahayd oo qabiilkiisu ka yimid maxay ahayd oo gadal la lahaa muxuu ku sameeyay hadda soo ay kala qaybsan ma oo kala fitiyo ninba meel ku xiray muxuu Soomaaliya u sameeyay nin reerkii asaga uu ka dhashay wanaajin waayay oo isku keeni waayay Soomaaliyeed buu isku keenaya Soomaaliyeed buu isku keenaya magada iyo galkay isku keenaya ma su'aashu horta marka ugu horeysa in asaga dalka laga badbaadiyo farmaajo dalka in laga badbaadiyo rabaa aniga taasi waa pariyad waa in laga qabto asaga inuu soo dalka kan dib u soo hawaysan la yiraahdo orod aad meesha ka timid iyo Buffalo meel la yiraahdo Mareykanka ayuu ka yimid waa koow qofka anigu aan is leeyahay Soomaaliya ku haboon yahay anigu marka qodobadooda waa wada dhageystay inta badan qof walbana wax buu sheegay ragaan tijaabinay weeye oo laba nin oo madaxweynayaal ah oo la tijaabiyay baa Xasan Sheekh ka mid yahay ayaa soo maray ragna lama tijaabin waa rag figure oo muuqdo weeye aniga waxaan is leeyahay calaamadda qofka Soomaaliya hogaaminaya calaamad buu leeyahay calaamadahaasi aniga laba nin bay iga muuqdaan labada nin waa ninka la yiraahdo ina Cabdishakuur weeye ninka la yiraahdo ninna waa ninka la yiraahdo Xasan Sheekh oo awal la soo tijaabiyay xoolo markaad gadanaysid oo aad doonaysid xoolahaas inaad ku manaafacaad oo aad ka heshid khayr iyo ijaaba aad ka heshid neef aad taqaanid oo aad leedahay neefkaan waa neef la yaqaan oo caana laga maalahayo sidaas uu leeyahay waa inaad gadato soo ma kan kalena waa nin aad tijaabinaysid oo aad yani ma taqaana xoolo aan neef aad tijaabinayso qurux badan oo wanaagsan oo aad u bogtid markaas aad leedahay ninka xool neefkaas wuxuu u egyahay neef wanaagsan oo anfacaya aniga labada nin baan u jeedaa hadda labadaas nin waxaan is leeyahay haddii Soomaaliya loo doorto mid ka mid ah waliba in Cabdishakuur baa anigu leeyahay sababta aan u leeyahay waxa weeye Xasan Soomaalidu way soo aragtay wanaag iyo xumaanba waa laga sheegay oo wanaag lagu sameeyay oo lama qarin karo wanaagiisii xumaanna dadku way ka sheegeen anigu waxaan is leeyahay marka qof aan wali tijaabinna maanta ninkaasan ku ogaano in Cabdishakuur la yiraahdo aan ku ogaano sababta aan u leeyahay waxa weeye waa nin samir badan weeye dhibaato badan baa loo geystay qodbadiisa dhageysanahay Soomaaliya wuu cafiyay ilaahayna wuxuu yani diinta quraanka ku leeyahay dadka cafiyay baa ilaahay baa maciinaanahay buu leeyahay macin in Allah ba'asa ilaahay ma codoway dadka cafiya dambi badan baa laga galay wadaagsoontii intii ka la dhibaatayay wadaagsoontii bad uu sangadan gadina karin in lagu labalgareeyay waxay ahayd bayt lagu sameeyay dhabarka qaliin asaga lagu sameeyay bay ahayd in Cabdishakuur waxa lagu sameeyay dhabarka qaliin baa lagu sameeyay farmaajo iyo groupkiisa ahaayeen rag ku sameeyay waa koow wada weydina asaga la dilay oo ilaahay ka fakiyay oo la dhaawacay ilmihii baa laga laayay intii dhibaato lagu sameeyay baad weydeen wax dariiq walba loo istaagay markii dambe haddeer rag la dilayay buu ku jiray oo yaani ma taqaana intay mudaharaadka dabcan sameeyaan ay aydiyadooda ku gudbinayaan oo dadka gudbinayaan ninkaas waxaan is leeyahay uu ku haboon yahay inuu dalka Soomaaliya hogaamiyo aad iyo aad buu ugu haboon yahay Xasan Sheekhna waa soo aragnay nin wanaagsan oo fiican oo degan weeye
wanaag iyo xumaan bale laakiin Soomaalida waxay tahay ninkii ay mar doortaan dib uma doortaan Soomaalida isleedahay faragelinta la sheego oo Soomaaliya laga soo shisheeyay ayaa ka weecinaysa rabitaanka shacabka oo ma baahan baarlamaanka ugu doorto inay dooran karaan ama shacabka ay matali karaan codkaas ay ku matali karaan aniga waxaan aaminsanahay faragelin inay jirto dalalka la faragelinayana waa cad yihiin kuwa la qarinaya ma Eritrea oo waligeed aanan arag oo waligeed aanan maqal oo wax oo shuuciya oo baaba faragelinta Soomaaliya kamid ah shuuciyada wadan laba wadan saddex wadan baa shuucigu ku haray waa wadan kale Kuuba iyo ayaga labada wadanka adduunka shuuci uga haray aan diin lahayn oo dariiq lahayn oo hal xisbiya labada wadan buu uga haray iyo China waa furfuran yahay hadda dhaqaalihiisu waa furfuran yihiin shuuci lagu sheegi kara China laakiin xisbi guuleystay weey waa faragelin bay lagu hayaa Ethiopia faragelin lagu haysa aan ogsoontii qof walba la qarin maayo faragelin bay lagu haysaa farmaajo ay dacay bay farmaajo inta galiyeen bay Soomaaliya waxa doona ka samaysteen carabta waa kuwa kana lacagta soo daldalaya nimanka leeyahay qadar annaka wadan aan saaxiib la nahay iyo wadan aan muslim iyo carab islaamna ha jira annaka masaarida Saudi Arabia dadka walaalaha annaga dalkeena iyo jooga Dubai la yiraahdo oo cadawgana kaga dhigay wadankan Kenya oo Soomaaliya oo dhan dhaqaaleeyeen hadina la yiraahdo cadawbayniin ka war ma cid baa yeelaysa nimankan dariiqada Soomaalida la taagan yani mataqaana Eritrea iyo Qatar iyo Ethiopia waa noo saaxiib Kenya oo aad ogsoontahay ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya ay ku haysato iyo sharafta Soomaaliya ay ku leeyihiin wanaag ay ku leeyihiin waa cadawbaynoo yihiin Dubai oo xoolaha looga yimaado dhaqaalaha aan ku leenahay dalkayaga waa la burburinaya waajibta faragelin sheega way jirtaa hatta westernku waa faragelinaya because of khayraadka dalkayaga way lagu dirirayo in dacay inta la galiyo wixii loo ka doonto ka samaysto way warun laakiin waxaan aaminsanahay nimanka xildhibaanada ah inay ka guuleysan karaan cid kasta oo faragelin ku haysta go'aanka ay qaataan bay ku xiran tahay qofka ay noo doortaanna waa inuu qof saliim ah oo xumaan oo dhan ka dahiran u yahay oo aan jara lagu hayna asagu adduunku inaanu ku leeshiin aragno adduunka anagu aan dacay intana gashaan meesha doona noo dhigaan bana farmaajo aan ku soo noqday Djibouti buu yiri cadawgayga way waa qofka Soomaaliya iibsanaya Djibouti ay cadawgayga tahay ma walaal kala leen Soomaali kala xoraha jirta oo annakii ayaga mooyaan soo Ethiopia ma haysato Kenya qaar kuma fadhiyo oo halka ma degan waayo Soomaalida kale annaka horta oo hadda aan noo taagay oo horta oo adduunka United Nations ka fadhido waa kuway marka arintaas anigu waxaan leeyahay nimanka xildhibaanada iyo gabdhaha xildhibaanada sharaf kale maanta dalku bohosho uu ku jiro ha ka celiyaan ma aamisani in ay ka adkaan ka dhoframiyeeshay way codkooda ku xirabta iyo waxa yiraahdaan lacag kasta hal la keeno wax kasta hal la keeno suurtagal ma aha in laga adkaado ayaga waa tahay soo gabagabeynayna ugu dambeyn oday Soomaaliyeed baa tahay arintaada aad u dirtay baarlamaanka oo soo koob waa koobaya horta fariin baan u diraya baarlamaanka waxaan ka codsanayaa oo mar labaad ka codsanayaa in ay ka badbaadiyaan farmaajo iyo kaliya-talisnimada dalka inay ka badbaadiyaan oo ay doortaan qof ka duwan oo calaamadahaas aan sheegay leh oo dadka iyo dalka iyo diinta u naxaya wadanka kale civil war buu ka soo baxay civil war in lagu celiyana ma rabno tartiib inaan uga baxno weeye dadka Soomaaliyeed dib u heshiisiin loo sameeyo weeye Soomaaliland in la raadiyo weeye wadanka dhaqaalihiisii in la soo celiyo weeye dalku lacag male Soomaaliya dollar baan isticmaalnaa waxaan rabnaa dadkii lacagtayadii soo celin lahaa annaka dan yar baa dadkayagu u badan yahay dollarka ma isticmaali karaan lacagtii shilinka Soomaaliga waan u baahanahay ninkii dib u soo celin lahaa oo adduunyada kala dhiil garayn lahaa oo lacag Soomaaliyeed keeni lahaa baan annaka u baahanahay dad islaam ahaan nahay waxaan rabnaa dalkayaga inaan waxa aan aaminsanahay caqiidooyinkayaga islaamka iyo diinta islaamka inay saldhig u noqotaan rabnaa dadka Soomaaliyeed oo ku kala fariirsan adduunka ama dibadda ha joogaan ama gudaha joogaan waxaan doonayaa inay la hadlaan baarlamaanka inay baaq u diraan
inay dadka kan ay bohosha dalkan kusii dhacaya ay ka qabtaan oo baarlamaanku uu bohol baan ku jirnaa bohosha naga soo saaro haddii lagu soo celiyo farmaajo waxaan inii sheegaya dalkan si walba buu geli doono wax shakii igala jiro crimeski dalka dagaal sokeeye ayuu geli doonaa waad ogsoontihiin wixii dalkan ka dhacay war haddeeray taagantahay haddeertaasay taagantahay kuwii dembiga galay oo yacni mataqaanaa gabdhaha dariiqyada ku birbiraynayay yaa looga dacwoonaya dowladdii looga dacwoon jiray madaxweynihii ayaa ku fadhiyey ikraan gabadhii la oran jiray iyo wixii ka dambeeyey kuwii ka horreeyey oo nin wada ilmihii eritrea loo dhigay yaa looga dacwoonaya 5,700 oo arday ah oo aniga adeerkay ku dhalay ku jiro ayaa naagan meeli jireen eritrea loo geeyay dagaal baa loogu baabiyey meesha la yiraahdo maxay ahayd Tigray iyo Eritrea Ethiopia dhexdooda waxaasoo dhan waxaa la doonayaa in ninkii dhaqi lahaa oo ummadda Soomaaliya jahayn lahaa in la helaa la doonaya anigu waxaan rabaa inaan uga baxo Soomaaliya ilaahay baan u baryaynaa ilaahu mid khayr lanagu hagaaji baan leenahay oo ka wanaagsan farmaajo iyo kooxdiisa